10 caadooyinka dadka aadka u guulaystay. Caadooyinka lagu guulaysto. Dadka aadka u guulaysta waxay dhistaan caadooyin adag oo ka caawiya inay ku guulaystaan nolosha. Halkan waxaan ku taxnay qaar ka mid ah kuwa sida joogtada ah gacan uga geysta guulahooda. Goor hore ayay toosaan. Inta badan dadka guulaysta waxay leeyihiin hal caado oo ay wadaagaan, waxay bilaabaan maalintooda goor hore. Tani waxay siinaysaa waqti dheeri ah naftooda si ay u qabtaan hawlaha koritaanka shakhsi ahaaneed sida akhriska, ka fiirsashada ama jimicsiga. Waxay dejiyeen yoolal cad. Dadka guulaysta waxay dejiyaan yoolal waxayna u kala qaybiyaan tillaabooyin la samayn karo. Tani waxay ka caawisaa inay ku sii socdaan wadada guusha. Waxay ka hormariyaan joogtaynta marka loo eego dhiirigelinta. Dadka guulaysta waxay dhistaan habraacyo iyo nidaamyo halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen dhiirigelin degdeg ah. Isku dhafka ficilka joogtada ah ee wakhtiga. Way akhriyeen oo way sii baranayaan. Dadka guulaysta waxay caado u leeyihiin inay wax akhriyaan oo ay u furfuran yihiin inay wax bartaan inta ay nool yihiin. Tani waxay ka caawisaa inay u koraan qof ahaan oo ay noqdaan kuwo ka wanaagsan naftooda. Waxay daryeelaan caafimaadkooda. Jimicsi, hurdo sax ah iyo cunto caafimaad leh waa kuwo aan gorgortan geli karin. Tani waxay ka caawinaysaa inay taam noqdaan oo ay si fiican u qabtaan. Waxay ku dhaqmaan is-edbinta. Dadka guulaysta waxay diiradda saaraan yoolalka mustaqbalka fog xitaa marka aanay ku raaxaysanayn. Waxay ku hareeraysan yihiin saamayn togan. Waxay dhisaan shabakad la taliyayaal ah, facooda iyo saaxiibo kuwaas oo caqabad ku ah oo dhiirigeliya halkii ay ka saari lahaayeen tamartooda. Waxay milicsadaan oo qoraan. Dad badan oo guulaysta ayaa waqti ku qaata inay ka fikiraan waxa shaqeeyay, waxa aan shaqayn, iyo sida ay u horumarin karaan. Tani waxay siinaysaa caddaymo nolosha ah. Waxay wax ka bartaan khaladaadkooda. Intii ay ku mashquuli lahaayeen caqabadaha iyo khaladaadka, dadka guulaysta ayaa wax ka barta iyaga oo sii kordhaya. Waxay qaataan khataro la xisaabiyey. Dadka aadka u guulaysta kama fogaadaan khatarta, way falanqeeyaan. Waxay og yihiin in abaalmarinaha waaweyni ay inta badan u baahan yihiin inay ka baxaan aagaga raaxada.